السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikaadshe qofka kula hadlaya waa Muxidiin Cabdi Cali casharka amaanta qaadanayna waa cashar English oo waliba bilow ah casharkan waxa uu ka kooban yahay erayo English iyo macnahooda halkaan waxaan sidoo kale ku qorannay nambarada anagoo ku tirsanayna erayada amaanta baran doona hadii ay beedmo erayga koowaad wuxuu leeyahay very easy aad u fudud very easy aad u fudud effortless aad u fudud very dirty aad u wasakhaysan filthy aad u wasakhaysan very expensive aad qaali u ah costly aad qaali u ah very rich aad u qani ah ama aad hodan u ah wealth aad hodan u ah ama aad u qani ah very happy aad u faraxsan ecstatic aad u faraxsan waa isla mid very good aad u wanaagsan excellent aad u wanaagsan very wet aad u qoyan soaked aad u qoyan very bright aad u iftiin badan ama iftiin badan luminous iftiin badan very clear aad u cad ama wax iska banaanyaal ah obvious wax banaanyaal ama aad u cad ama iska muuqdaba very confused aad u wareersan ama waxa weeye u yani isugu dhex yaacsan perplexed aad u wareersan very colorful midaba badan vibrant midaba badan very creative hal abuur ah ama hal abuur leh innovative hal abuur leh very crowded dad badan meel aad u dad badan pestilent dad badan very deep aad u qoto dheer profound aad u qoto dheer very slow jiitamaya ama loodaya sluggish aad u jiitamaya ama aad ayar u soconaya ayar markay u soconayaan ama loodayaan ba sluggish ama very slow yada very warm aad macnaha kulul hot waa kulul warm waxa laga wadaa wax diiran marka aad u diiran meesha ka dhiglaad waxa leedahay wax kulul arigaas ka anfacay very warm aad u diiran hot kulul waa isla macnaheedu very exciting xiisa leh exhilarating xiisa leh very weak aad u tabaryar frail aad u tabaryar frail aad u tabaryar very little aad u yar tiny aad u yar very careful taxadar badan courteous taxadar badan very busy mashquul badan swamped mashquul badan swamped mashquul badan very dear qof ama shay kugu qaali ah cherished qof ama shay kugu qaali ah macnaha wax adiga qalbigaaga aad ugu dhow baan leedahay very dear ama cherished wax macnaha qalbigaaga aad ugu dhow wax weeye aad qiimo badan agtaada ku leh very tall aad u dheer towering aad u dheer very stupid dabaal ah ama dhabcaal ah idiotic dabaal ama dhabcaal ah very brave geesi ah ama qof aad u geesi ah courageous qof waxa weeye geesi ah oo dhiirashada courageous waa dhiirashada intaas erayada kusoo gabagabaynaa intaas ayaan erayada maanta kusoo gabagabaynaynaa fadlan haddaa kanaal ku cusub tahay kusoo biir haddii aad horey noola joogtayna commentiga iyo share iyo like-ta ha ka bakaynin aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa casharka inaad ka faa'iideen asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu